halkan waxaynu maanta u kulanay waxa weeye hawlaynu weligeenba wadi jirnay haddaynu nahay bahdeenna waxbarashada intii ku cusubna insha Allah inay maanta kulankeennan khibrad ka qaadato ayaa halkan la isugu yimi kulankan oo ah kulan ay jaamacadaha saddexda jaamacadood ee mas'uulka ka ah gobolka Maroodi Jeex ilaalada iyo supervisionka amba kormeerka imtixaanaadka qaranka ee shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiga sare ayaa maanta waxay halkan kula kulmeen inay session amba tababar kooban ku qaataan oo hal maalin ah oo ay bixinayaan madaxda sare ee xafiiska imtixaanaadka oo nagala joogo gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka dhammaan waxaynu halkan u wada joognaa inaynu ubadkeenna u xaqsoorno inaynu ubadkeenna imtixaankooga ay waxbarashadooda 12 sano soo dhiganayeen inaynu maanta u garsoorno oo imtixaan cadaaladi inuu dhacabaan la soo biday waxaan la soo biday cadaalad iyo hufnaan iyo qiyam iyo akhlaaqiyadkii macalinku lahaa waxba yaan hadalka ku sii tiigaalin hadalka waxa inoo furfuri doona madaxda jaamacadda Hargeysa iyo madaxda imtixaanaadka iyo gobolka inagala socota barnaamijkeena anba wuxuu daaran yahay qorshahan maanta aynu wada fadhinaa in la toobabaro la hoga tusaaleeyo la siiyo wixii guideline ah supervisorska imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare ee gobolka Maroodi Jeex supervise gareyn lahaa wuxuu barnaamijkeenu daaran yahay waa soo dhaweyn iyo tababar kaas oo insha Allah qaadan doona maanta inoogu kooban maanta iyo wixii dardaarana iyo tusaale ay leeyahay siinayo jaamacadda Hargeysa ahaan annagu waxa weeye waxaan leenahay soo dhaweynta mar haddii jaamacadda Hargeysa marti loo yahay ku soo dhawaada jaamacadda Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsantiin inaad soo ajiibtaan yeedhmadii leedin yeedhay aad baan u soo dhaweynaynaa jaamacadaha kale ee jaamacadda Hargeysa aan ahayn sida waliba xilkasnimada leh saaka 8 iyo xoogay baan joogo jaamacadda aadna halkan qof kama maqnay aad baan taa ugu mahadinaya waxa weeye waajibaadkii iyo waqtigii loo yeedhay hore u yimaadeen كل برنامج كنا نروح نبود دارين هوا شقين وذا قبنا شرني قرن كاينو قبنا شرني وحنا مسنا هاي شقة عينو قبنا نوا شقة معلنا عينو قبنا شرني لكن إمكا مسؤولية دي بكسي بلطي وحنا قبنا شقة أينان أرضي الجامعة عينو قبنا شرني ونقدر صور شرني وحنا نقدر صور دور كان أرضي دوسية صاري وحنا نقدر صور عدالة وحنا نقدر صور كلا سرينتا waxaan ku garsoorinaa aqoonta iyo dadaalkii sameeyeen inay ku kala baxaan oo ku kala sareeyaan mid ku garsoorin waa mas'uuliyad weyn waxaan aaminsanahay jaamacadaha qaranka amba jaamacadaha dalka iyo saddex jaamacadood halkan joogaba in layna biday inaynu u soo gurmano xafiiska imtixaanaadka oo inuu gurmano inaynu qishka baahay aynu door ka qaadano oo aynu meesha ka saarno waxaan aaminsanahay dadaalkeena kartideena iyo wadajirkeena oo la isku geeyaa inuu meesha ka saari karayo dhibta jirta ee qaranka haysata ee qishka oo aynu carruurta u garsoorno oo ay carruurtu noqoto qofku wuxuu soo akhristay uu la yimaado meesha ee aan ku soo talagelin qish daaqad looga soo tuuray wada sabax looga soo diray macallin wax soo siiyay aan ku talagelin waxaanu tagi doonaa goobo laga wada shaqeynayo qishka oo community-ga meesha degan macallimiinta hadday dooraan iskuulka wuxuu ahaa deegaanka ku xeeran dhammaantood ay facilitate garanayaan qish waa hawl dadaalkeeda leh waa hawl xilkasnimadeeda iyo daacadnimadeeda leh waa hawl aynu aaminsanahay inaynu ka bixi karayno waxaan aaminsanahay inaynu adkaysi dhabar adayg daacadnimo iyo dadaal inaynu isku geyno haddii la hayra أثنى على نعمه متباشرة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى طه رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu isugu nimid sida labadii nin ee iga horreeyay jaamacadda ka socdayba ay sheegeen gurmad baati hor ilaahay iyo leedin aamin imtixaanku ma aha dib ma aha ciqaab ma aha kadeed waxaynu doonaynaa in ilma iyo shahaadad isla aynu helo oon adduunkii kula tartano waxaan ilaahay baan isku dhaanay mar kale ubadka yaryar waxa inoo balana inaynu sida cadaaladda ilaahay nagu ogyahay inaynu galo mashruuca waa dhowr casho oo ordaynu galayna aan isku xidhnaano goob kasta oo joogto oo gobolkii ka mid ah waxa weeyaan toos aniga ahaan maadaama aan ahay gudoomiyihii gobolku kormeer baanu ku jirnaa anytime ay wax kugu soo kordhaan
oo wax kugu soo dhacaan waxaan doonayaa markaa inaynu isku xidhnaano sanqari aanay inaga yeedhin si asturan oo qurux badan aynu u dhammayno bliis markaa waxay noo ballanaa inaynu isku xidhnaano oon mar walba wada hadallo haddii alla ka dhigo oo aynu marba wixii nagu soo kordha aynu deg deg u xallino horta sidan waxaan loo weyneynaya haragga libaaxa loo gelinaya maaha ardayda waxa weeyaan waa 10% waxaan wax la calacalala boqolkiiba 10 aan waxba diyaarsan weeyaan maxaa xoojiyey buunbuuniyey waxa weeyaan wadaadada waxay odhan jireen waxaa jira culamaa usuugaas tolada maxay odhan jireen waxaa jira waxoogaa macallimiina oo tiro yar waa 53 gebigoodba 350 macallin weeyi oo dalka ku filaqsan nimankaasu ardayday la sii heshiiyaan dabeetana macallimiintii waxay ilaalinaysayna xarkay ku sii yeeshaan baalka yarba loo sawiraa xafiiska imtixaanaadku hal moobil hadduu helo gruubka waxa ku jiro oo dhan iyo waxa ka qayb qaato oo dhan waanu helaa meel baanu leenahay meel yaroo lagu shiilaan leenahay horta mushkiladu waa intaa taas iyadu mid hoggaanka u go-ayo wixii isku xidhnaa waa cut off taasi way kala luntay supervisor oo wax ka lagaan rabo jaamacaduhu way bixiyeen installationkii waxaanad ogaataan war wuxuu isugu imanayaa waa ilbiriqsiyaan laga faa'iidaysan waa markaad qaybinayso imtixaanka nimayo waa toogu daran waayo waa xilliga laysla eegto waxaan leeyahay war feejignaan iyo deganaansho nimayo labadaas u ogaada wixii barobnaya kula kulmana jaamacaddu waxay leedahay kormeerkeedii bay leedahay kormeerkaaga jaamacaddaada ayaad warkaa siinaysa kormeerka jaamacaddaada siinaysa kormeerkaasi hadduu xal kaalmo u baahdo in la kaaliyo isagaa la soo xidhiidhaya xafiiska jaamacaddu waa inay commandkeedu u urursanaado wada socoto haddii alla ku ree moobilkaaga macallinow dabku kama go'i karo intaas supervisor waad ku jirto communicationkaagu waa inuu 2 ways u socdaa confusionaha qaatiina ardayda iyo ciidda kula shaqaynaysa u arag dad mas-uula u arag waa mahadsantihiin iyo macallimiinta jaamacadaha halkan isugu yimi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi tababarka aynu qaadan doonno maanta haddii aan loo idhaahdo kolley maaha waxba isu dhigi mayno oo dee halkan waxaad joogtaa khubradii jaamacadaha iyo aqoon-yahankii dalka laakiin waa xusuusin aynu xusuusinayno insha allah habraacyada ama habraaca imtixaanka aada u wadi doonto sidaad u qoran xafiiska imtixaanaadka oo aynu bixin doonno insha allah han out yar aynu ugu talagalnay inuu macallin kasta ama supervisor kasta oo goob jooga haysto haddii aan loo idhaahdo jaamacadaha qaarkood horey u sameeyeenba arrintaa sidaan filayo weliba jaamacadda hargeysa oo kale waxay sameeyeen habraac iyagu ay samaysteen oo ay macaa ku tababareen shaqaalaha ka qaybgelaya imtixaanka jaamacadaha kale laftooduna waa laga yaabaa inay guubaabo iyo talaba siiyeen haddaba ujeeddooyinka guud ee tababarku waxay noqon doontaa xusuusinta shaqaalaha goobta imtixaanka sida guddoomiyaha ama kaaliyaha iyo ilaaliyaha iyo wixii kale la shaqaynaya oo askartii ay ka mid tahay in la xusuusiyo mabaadi'da guud ee imtixaanaadka qaranku ay leedahay waa kow mabaadi'da guud ee imtixaanaadka qaranka inaynu xasuusino qofka shaqaalaha ka ah goobta ha ahaado supervisorka ugu sarreeya ilaa iyo halka ugu hooseysa oo ah qolada security-ga mabaadi'da guud oo noqonaya howlgudashada daacadnimada howlkarnimada iyo hufnaanta shaqada iyo dee isla xisaabtanka oo ka bilaabmaya maadaama adigu tahay dee supervisorkii goobta inaad la xisaabtanto kaaliyahaagii ilaaliyaha laftiisii dee ardaygii howlahaasoo dhan
iyo sidii ay u soconayeen adigu aad wado adiga laftaadana dee lagu sii xisaabinayo oo lagu imanayo kormeerkii xafiiska iyo kormeerkii jaamacaduhuba ay kaa daba imanayaan oy ku soo eegi doonaan insha allah qof walba markaa hawshiisa lagula xisaabtami doono iyo xusuusinta adeegsiga habraacyada imtixaan qaadista oo iyagana aynu ka soo samaynay sidii aynu sheegaynay hand out yaroo supervisorku haysan doono ilaa markuu goobta tago markaa labadaa qodob aynu sheegnay innagoo ka duulayna waxaynu eegi doonaa 4 qodob oo ugu muhiimsan waxa inoogu qoran muxuu ahaa habraaca xafiiska imtixaanaadku soo diyaariyo oo aynu bixin doono insha allah imika halkan inoo yaalla oo aan filayo inuu wax badan naga anfici doono kolley dee supervisorska halkan jooga rag badan oo ka midii waa raggii xafiiska imtixaanaadka in badan la soo shaqaynayay oo si fiican bay u garanayaan wixii ay ku darayaanna iyaduna way u taallaa iyo wixii ka dhimana ay dee na xasuusinayaan oo waa iska bini aadan waxa laga yaabaa inaan waxyaabaha qaar ka tagno waxaa kaloo jira supervisors inagu cusub oo u baahan iyagu inaynu dee xasuusino wixii oo loo sheego marka waa dee waxaan filayaa kolley halkan waxaa jooga macallimiintii dalka ugu mudnayd markaa waxa weeyaan markuu waxaa yar ad eegto wixii aad u baahto insha allah berri iyo saa dambe iyo intaanan goobta imtixaanka tegin inaad sii yara eegto isha sii mariso wax badan buu insha allah ka anfici doonaa waxaan rajaynaynaa inaad la mid noqoto ninkii 10 sannadood imtixaanka qaadayey haddii aanad hore u qaadin insha allah waa yahay waxyaabaha ugu muhiimsan insha allah inuu kan eegi doono waxaa ka mid ah waajibaadka shaqaalaha goobta waajibaadka shaqo gudashada shaqaalaha goobta siduu qof walba shaqadiisii u qabsanayo ayaa inoogu xusan laga bilaabo guddoomiyaha goobta imtixaanka oo isaga laftiisa aynu shaqadii u kala saarayno sida aynu ku arki doonno slideska halkan inoogu yaalla imtixaanka ka hor muxuu qabanayaa inta lagu guda jiro imtixaanka waxyaabaha uu qaban doono dhammaadka waktiga imtixaanka waxaynu uga jeednaa marka xiisaduhu dhammaadaan oo maalintii waa inagan xiisad baa laga yaaba marka hore inu gallo taasi markay dhammaanayso sidaynu u shaqaynayno ayaa ku jirta meesha insha allah iyo waajibaadka shaqee uu qaban doono guddoomiyaha goobtu kaaliyihiisu ilaaliyuhu waxa uu qaban doono insha allah ayaynu halkan kusoo koobi doonaa iyo gebagabada maalinta u dambaysa ee imtixaanka waxyaabaha laga rabo iyagana supervisorka goobta ayaa iyaguna inoogu jira oo aynu eegi doonaa